dadka Soomaaliyeed doorasho qof iyo cod ah u diyaar garoobaan doorasho qof iyo cod ah ha u diyaar garoobaan kuwa xun hadaan maanta talada joogo war hana biriyaal socdaa iska keen dira mac salaam iska taga dhaha dadka Soomaaliyeed oo sheegay ayadoo qof iyo cod ahayn ayaa dadkii loo xil saartay iska taga inta yiraahdeen shalay yaa iska tagna maanta inaan iska tagna diyaar una dood iyo dacwo ma qabno laakiin dadka Soomaaliyeed ballanaan ka qaadnay cid aanay ayagu dooranin inaanay xukumin ballankaasaan qaadnay ballankii aan ku taaganahay aniga madaxweynaha jamhuuriyadda aanu ah hadday tahay dowladda hoose ee degmada meel hebel ku taalo iyo hadday tahay madaxweynaha jamhuuriyadda dadka Soomaaliyeed ciday la dhacaan ra'yigeeda inay doortaan reer hebel ku dooran maayaan shahaado weyn oo sitaa ku dooran maayaan ra'yiga mustaqbaliga ah ee biri oo wax uu hagaajinayo oo ku hogaaminayo ciday ku qancaan ha doorteen fursadaas alla siiyo hadduu qofkaas ku xumaado biri haddana fursad kale isaga bedeli kara waryaanan degdegin orodka maanta oo maanta wax walba maanta sameysmaan ama wadan soo marnay 34 sano no socoto xilligii dawladii ay naga burburtay intaas waa soo socday aan waa gaabinay aan dhaano laakiin waa soo socday haddana waa sii soconnaa dadka Soomaaliyeed waxaan maanta ciida muxuu ahaay maanta aan ciideynaa waxaan leeyahay meel kastoo caalamka ay joogaan ha u diyaar garoobaano codkooda ay leeyihiin in ay go'aan ku gaaraan ayaga caliya fiican caasha fiican maryara ka sii fiican jaamaca ka sii fiican cali soo ka fiican inay yiraahdaan go'aan ha gaaraan siyaasadda suuq ay leedahay badacada suuqaas la keenana waa ra'yi siyaasadeed cidii ra'yi siyaasadeed fiicanta Soomaaliyeed doorta ciday doonta ha ahaato doorta kuwa badan iyo kuwa laga badan yahay waxay ahaanayaan hadda doorta ninkii ra'yi siyaasadeed waa ra'yi siyaasadeed oo mustaqbalka qurxinayo hadii alla yiraahdo wax ku dooro